360 neef oo geela isla markaana looga qayb qaadanayo xuska dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee bisha Mawlid ayaa waxaa maanta lagu soo bandhigay xarunta Daaro Mustafa ee Sheekh Maxamed Buqaari oo ku taala degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir halkaas oo lagu qaban doono munaasabado waaweyn oo lagu xusayo dhalashada nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Maxamed Buqaari ayaa sheegay maalinta Khamiista inay ka bilaaban doonto xarunta Daaro Mustafa munaasabadaha xuska nabigeena muuminiinta iyo muuminaadka iyo muslimiinta iyo muslimaadka caalamka dunida darfaheeda jooga aanu ku farxagelineynaa bacda tahiyya bacda an naqula lahum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh in aan ixtifaalkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ziyaaradii nabigeena calayhi salaatu wasalaam bisha Mawlid aynu ziyaaran jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam shukran lillahi wa lirasuulihi aan halkan ku soo bandhigayno adeegii loogu talagalay ziyaarada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ee Mawlidka inaan halkan ka bilownay sidii raatubka iyo noo ahayd niyadii wanaagsaneed hadda ka horba aanu niyoon jiray halkan waxaa lagu soo bandhigay saad u jeedaan geeli talaabada koowaad la qaadi jiray qurbaanka ahaa ilaahay wajigiisa loo baxsan jiray nabiga lagu xusi jiray calayhi salaatu wasalaam mawlidka nabiga lagu xusi jiray sallallahu alayhi wasallam geelaas oo hadda noo ah 360 neef waa ziyaaradii nabiga waa xuskii nabiga waa mawlidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu leenahay muuminiinta iyo muuminaadka iyo muslimiinta iyo muslimaadka waan faraxsanahay hanala farxin baan leenahay marka koobaad waxaan leenahay hambal iyo ciida wanaagsan loo ciidayo nabiga dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam in waxaan bilaabaynaa jumcadan bilaabaynaa ama khamiistan bilaabaynaa labadu way furanaan doontaa insha Allah tacaala iyo ilaa bisha dhamaansheedo dhanba insha Allah sidoo kale Khaliif Axmed Sheekh Umar Khaliif Korweyne iyo Sheekh Cabdullaahi Maxamed Macallin ayaa ka hadlay munaasabadaha lagu weyneynayo bilashada bisha Mawlid maanta ilaahay baa mahad iska leh waxaan joognaa Daarul Mustafa nabigeena calayhi salaatu wasalaam tacdiimintiisii iyo weynayntiisii aan guda galnay waa bishii barakeysnayd oo Mawlidka ayaa noo bilatay noo curatay insha Allah tacaala waxaan joognaa Daarul Mustafa uu ku sugan yahay sheekheeni weynaa jaliilka Sheekh Maxamed Buqaari Sheekh Maxamed Nuur geela cadadkiisa aad u jeedaan waa 360 neef oo geela oo loo bixinayo بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كنت تعظيمنا النبي الله عليه محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا مركا وحان أشيء إن عالم كمالك استأول لقى تعظيمنا النبي الله محمد دتك تعظيمنا يا وحواي لوجه الله يا خيرات يا منصب يا كرامي كجاريان إن شاء الله تعالى إن تعظيمنا أو وينينه أو كل منه أو إلهي النبي الله محمد فضل جيسن قصة بحشة xulkiisa nasiya ayaan rajeynaynaa insha Allah taala aad baad u mahadsantihiin waxaan ku baaqaynaa in farxadda dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan u wada istaagno oo boqolkiiba boqol ay inaga noqoto qofku walba intuu iimaankiisu la egyahay iyo darajadiisu la egtahay qof walba maxabadiisu meeshay gaadha iyo darajadiisu gaadhaysaa marka nabigeenu calayhi salaatu wasalaam almar'u ma'a man ahabba ayu inagu tarbiyay halkan waa xarunta Daaro Mustafa oo ku taala degmada Dharkiinley 12 bishan waxa ka bilaaban doono xuska dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam 360 neef oo geela ayaa lagu xusi doonaa dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaa ay bisha ka dhamaato